idinka qudhatiin armaa wax idin yaalaaba ayin jir bal hadallo u baahan iyo doodo u baahan waxaan kaga bogsoonayaa bal arrintan in la yidhi IT uu ku fiican yahay oo ninka waxaanu aragnay in loo baahan yahay oo gabadh baaba la siiyey war bal waa war fiicane haddiiba arrintu halkan ay marayso waxbaba la isla waayi maayo 93na waaba xusuustaa waagaa ma aqaano raggaa cidi inay ka joogtay shirkaas laakiin waagaa qudhadeeda soo dhaweyn badan runtii waa dareemaynay raggaa hore wax badanayba kama noola waxaan u malaynayaa aw daahir xaaji xasan raggaa hore raggaa hore ee joogay runtii waagaasna meel bay ahayd 93 war waxaan cidina la murmi karaynin war nabad aan ku wada noolaano war wixii inoo dana aan gooyaha ka wada joogno aan yeelno haddii nabadda hadda reer Booramow hadda yeelsanina hadda annaba warka waa haynaa magaaladan Boorame 4 dawladood baa ka dhisan hadda Soomaaliland warkeeda waa haynaa hadda Djibouti-na inkastoo xoogaa xurgufii jirto Djibouti-na dad ka dambeeya oo dawladda Djibouti xaggeeda marba jaleecayana waa ognahay hadda aw barana waatan oo xaggan iyo kelinka hadda warkooda yana waa haynaa hadda idinkuma bayara xagga iyo xamar marka aqliga aad idinku annaga waxaaba na wareerisay Puntland iyo Somaliland waa laba hadda labaanu la xiirxiirayna war idinku afar haddiiba aad hesheen aad kulmiseen oo caqli aad magaaladiina iyo dhulkiina ku dhisataan oo jaamacadan arkay ku dhisataan oo haddana nin walba intiis al xirso horta magaalada ma jooga ala hajaas mise xamar buu jira ala xaaji xirso wareer markaan xamartaa wada joognayna waa jiraan ala ay xal waxaan u jeclaan lahaa waxaan aad idinku mahadinayaa soo dhaweyntan dhabta idinka muuqata waftigan aanu la soconay annagu wasaarad kasta maana raadsanna wasaaradda waxbarashada yaanu isniri iyada ugu furfuranoo ardayda waxa la barayaa 20 sano 40 sano noloshooda loo diyaarinaya bal wasaaradeedii hadday hawshan idin la wadaan arma furfurshaan iyo open mindedness iyo maskax furan iyo ka tuhum baan u bidnay waana ku mahadsan yihiin labadoodanaba guddida 7 ah yay ku jiraan dowr fiicanna ay ku leeyihiin kulley saaxiibkay Faysalla te xisbina xirana meel buu ka oot haddana isaga qudhadiisa aqli buu la yimi isagoo u ciidaho xisbigaas oo waliba doorasho la isu diyaarinayo haddana arrin guud oo Somaliland inuu runtii dowrka ugu firfircoon oo ku yeesho waana ku mahadinayaa waana ogahay marmarka qaarkood hawlo uu qabsan lahaa inay hawshan ka mashquulsan marka bal odayaashiina ragga badidiisa de barasho wanaagsan waxaan malaynayaa odayaasha inta halka joogta aniga Salebaan baa gidigood ka wada weyn annagaaba qirayna caawa runtaan iska sheegaynaa barasho wanaagsan ya marka warooy nin Soomaali ah oo 70 gaari ama ka gudbay wuxuu bada u diiday anigu garan maayo laakiin warar fiican oo kala aad sheegaynaysan oo haddii qofku dadaal la yimaado ismuujiyo Cabdilaaha ka waramayay haddii beerta aad reerka aad la gashaa maashada oo haddii aad dibiga bahashan ilaa tractors iyo ma jiraan aad hawsha gashay hawl sahlanna maaha haddaad ka soo baxdid ilaa qofku waa la imtixaanayaa de markaas aad mudanaysaa
in gabadh lagu siiyo dhulla lagu siiyo warbal war fiican baa la sheegay hadduu xeerkaasu noqonayo rag badan baa dhiiranaye taana waaba soo dhaweynana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa un ballana waxa ballana annagu haddaan khaatumanahay wixii Somaliland la wada leeyahay lagu dhisi lahaa oo cidina ayan marti ka ahayn oo shuruuc iyo dastuur iyo wax qaybsi lagu wada raaliyahay haddii lagu hiranayo 100% ka mid baanu nahay annana intaas un baanu qabnaa taasaan rabnaa bahasha in la dedeje nama fiicna haddaan mas-uuliyad la iska saarin oo nin door hadda haweenkaaba xagga doorka inoogu fiicane cid mas-uulah oo hawshaa leh oo hawl maalmeedkooda ay noqoto haddaan lagu dhiiran hadda waktigii iyo dhacdooyinka waa inaga dheeraynaya ramadaan baan ku jiraa hadda waa dhow doorashaaba la gelayaa allahu yaclam bal doorasho ka bacdi yaa nool yaa dawladda yaa wax badan calaamad su-aal badan baa meesha jirta haddana in